khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dagaal kooban oo dhexmaray ciidamada ammaanka magaalada Kismaayo iyo sidoo kale ciidamo ilaalo u ahaa mid ka mid ah musharaxiinta ku sugan gudaha magaaladaasi sida la sheegayna waxaa ka dhashay dhimashada hal askari oo la sheegay inuu ilaalo u ahaa musharax Gaboose oo ku sugan gudaha magaaladaasi Kismaayo. ciidamadan ayaa dagaalkooda waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay ciidamada musharaxiinta qaar ka mid ah ilaalo u ah ay isku dayeen inay gudaha u galaan hotel magaciisa lagu soo koobay Agan oo ku yaala gudaha magaalada Kismaayo, laakiin ilaalada hotelka ay ka biyo diideen taasi oo kulmisay in ciidamada ammaanka iyo ciidamadan ilaalada u ahaa mid ka mid ah musharaxiinta ay ku wada dagaalamaan saacado kooban gudaha magaalada Kismaayo. waxaana la sheegayaa in darawal gaari gaar ahaan musharaxiinta mid ka mid ah kuwa ku sugan Kismaayo uu halkaas ku geeriyooday, halka wararka qaarna ay sheegayaan in khasaare dhaawac ah uu jiro. ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan kooban, waxaase magaalada Kismaayo ka socda qaadashada shahaadada musharaxnimo ee madaxda u tartamaysa kursiga madaxtooyada Kismaayo.